si fantastic ayuu kubadda u badbaadiyey mar kale koona koonooyinka qatar bay ku yihiin kuwa kan galmudug waa soo laadayaan waa koona waa koona 17 daqiiqo waa la soo laaday markaan haya madaxweyne waayeen ciyaartooyga kan runtii still labada dhinac gool bay isku gaadgaadeen haddaad dib nagala soo biirtay waxaad nagala soconaysaa astaan facebookyada asxaabta nagala daawanaya cimaamadiinu ma haysan karno qaarka gulmudugaysan iyo qaarka puntlandnaysanba anigu nasiib aan baan idin rajaynayaa anigu kabtan waa iga weyn tahay anigu shuqulgaalku waan ku xaragayn karayaa laakiin waxa weeyaan waa kan mar kale waa kale ciyaartooyga galmudug afkooda goolka yaa ciyaarta tan runtii waa asxaabtahay waar kuwa ila socday shuqulgaalkow yaa shuqulku micnuhu waxa weeyaan shuqulgaalku waxa weeyaan kabta iska gashan kartaa moogtahay yaa waxa weeyaan shuqulgaalka moogtahay waa waxa leeyahay kuwa marada ka dhacday waa yahay kuwa cumadooda ma haysan karo laakiin waxa daawanaysaa yaa derby galmudug iyo puntland baa daawanaysaa warku ciidamada iska wada tuur u baxaya labada dhinac kii gool laliya ku tuur weeyaan maanta haya waa kan puntland waa lagu tuuraya goolka alla sidee goosayka anayna waalayaan wili gool mid adhaliyo ka kala hor uga keenaya waxay rabaan inna waalan galabta way doonayaan yaa mar hadduu mid gool laliyo hore laga keenaya goosha istiraada ciyaarta goola ka maqan maadaama hadda barbaro ay tahay haya waa difaacayaan هيا وكان galmudug waa u dhiganaya u fiirso haye si fiican buu xariifeenaya ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee galmudug nin ciyaarta isku haya wallahi gool baa laga dhalin gaarayo runtii istil runtii waxaa la yaaban tahay lambarka 8aad ee xulka kubadda cagta galmudug war baan kaaga haya iikaadi waa la soo laaday koonaha ka waa laga difaacaya ninka la yiraahdo cabdifataax maxamed xuseen yaa geesay ninkaas muujida kabtiisa wata lambarkiisa jikatoore wuxuu jikatoore ku yahay waa ninka baxay xulka mataqaana under 20 kan waa baxay sidoo kale wuxuu baxay degmooyinku wuxuu matalayay xuma xamar jab buu matalayay waa jikatoore weyn waa nin aad u khatar badan ciyaartooyga xulka kubadda cagta ee galmudug baa xoogaa xaaladooda la fiirinaya wallahi maanta habar xaliima xataa gambarkeeda u yaalla yaa hooyo galmudug hooyo puntland walaalo midaysan keenay maanta alla maqaarku muxuu nacalaboog yahay waxaana khalqi ku arkaysa istaadiyuhu maanta waa taageerayaal ka kala socda dhinacyada kan oo taageeraya maanta laakiin waxa ka sii badan inta maanta caalamka kala soconaysa ee ciyaartan u daawanaysa oo laba dhinac kala taageeraya maanta waa gool iyo gool puntland iyo galmudug goolka galmudug waxaa bilaabay maxamed maxamuud daqiiqadii 3aad balse daqiiqadii 6aad cabdiqani axmed baa bareejay walaal 3 daqiiqo u dhaxaysa u fiirsa labada gool yaa qir waxaad ku jirtaa oo aad daawanaysaa nasiib waxaan u leenahay inaan helno isku aadkii ugu adkaa ee ciyaaraha galmudug waxay doonaysaa markii ugu horeysay taariikhda inay u gudbaan finalka ciyaaraha kan waa galmudugtii ugu awoodda badnayd ugu cimaamad badnayd ee aan arkayo puntland iyagu waa awooddii la yaqaanay mar bay yimaadeen mar cimamadda waa lagu tuuray championskii way noqdeen maanta waxay doonayaan inay markii 3aad ciyaartu final yimaadaan anigu waxaan leeyahay hadday maanta puntland final timaado cimamadda ha layska tuuro walaalayaal waxaas yalla haysi ma laha yaa hadday puntland maanta final ku gaarto runtii nimanka kanu waxaad arkaysaa maamul goboleedka ugu khatarta badan ciyaaruhu goboleed arkaysaa walaal 3 sano xiriira ka weyn waa tabs ma la gashan karo kabtaas waa kab lambar 50 waa kab boqol wayaan 3 sano xiriir final tagaya ولا بد عمد لما يصدقون مانتا galmudug ayaa maanta final gaartay wallahi aan garabka ii saarnaan karin maanta cumadaas oo eeba markii ugu horeysay final gaarayaan waxay noqon doontaa wax cusub oo taariikhi ah anigu maanta runtii waxaan la soo sheekaystay labadii macallin runtii waa dad asxaaba waa dad maqaar waa dad kamaldaari waa la sheekaystay runtii waxay ugu yiraahdeen mid kasta waar maxamed qawar cumada nagu soo tuur waar maxamed qawar cumada nagu soo tuur waxaan la sheekaystay macallinkii saaxiibkay Puntland waday macallinka saaxiibkaan nahay runtii waa
isboortkana saaxiibaan nahay mugtaan reer Kamaldaan haddaan nahay saaxiibaan nahay anaga waxa weeyaan annaga reer Kamaldaan haddaan nahay isku fiicannaga kabta kale ma gishanaga qoliyaha kabta kale gishta ayaan isku fiicnay mooyaane haysta mooyaane anaga reer Kamaldaan yaan nahay waxa weeyaan isku fiicannahay maalinkii saaxiibkayga Puntland Ibrahim Cabdi Cali waa sheekaysanay cabaar baan wax xafiltanay waxaan rimaan looyay maad maxay leedahay wiil maxamed qadar oo uniya maanta jibaal baan noo yaale yaa awood iska soo turwiini maxaa lagu arrin ciyaarta day dhamaato wallahi Maxamed haysa karin baan idin waxaan la sheekaystay Ali Cabdi Taariikh asna wada xulka galmudug waa ninkii xul galmudug ka dhigay wax kale wuxuu yiri Maxamed qadar maanta kaariyo baan dareemayaa wadnaha baa idag leynaya yaa baa wuxuu yiri niyo ciimadii ku soo tur labadii macallin waxay u yiraahdeen ciimadii ku soo tur micnuu ciimadii ku soo tur maxay tahay taqaana ما هنا لابد ما وكلا جريه معها ارجو عمامد كتور با مستر عمامد كتور ما دام انا هي بيقول لك افتميان وارماد عمامد اسكو تورت با لوgu yiri waxa yiri markay dhamaato ayaan cumad iska soo tuuraya wali la isma gaarin jwaal baa idin yaalbaan ri runtii waxaan huwa maanta in ciyaarta tan lagu daali doono taageerayaasha laakiin waxay arki doonaan ciyaar saacad kasta wadnuhu garaacayo Puntland baa ciyaaraysa markan afkooree goolka waa kan weerka Yaquub baa ordaya haya Yaquubka asagu markasta waa matala xulkano sanado badan ayuu matalaya waa nin joogtay kala qaab ciyaareedkiisa maalinka xulka Puntland waa kan Ibrahim Cabdi Cali waa nin fantastico sportia wuxuu rabaa inuu Puntland maanta taariikh u xareeyo buu doonayaa oo yiraahdo waryaha maamulada kale yaa Puntland waa kan mar kale waa la soo madaxaynayaa estel waka لمبر كانوا يا وحما الليلة هدا قولاشي دانا بودلان نكا ما قاتي أنا نكا عمامدي سلامة هيسكرية نكا عمامدي سلامة هيسكر جول افتر جول ودالينا يا وكا مركلة وعياريا بدبوينك الشمس مغني دها واو مركلة واكر قلبك ووير بيكو جرتايو ايان وعياريا هيا ما تعرفوا وكا مركل وكا عيارتودي حلقة كبدا عكتا قلب واجيكاتوري وينا أسموا إليستين يايو ومن قطر بدنك كا وآدو هلس بدن هايه ورا جيري دون يبال ويش كايرو وكا عيارتا أمانتا قلمدوك فانتاستيك تيم وين اليوم sidoo kale waa kan markale Puntland waa yana xul kale cumadiisu la haysan karin waa yahay anigu inaan Puntlandeeyo oo aan galmudugeeyo waxay ku kala xiran tahay hadda meeshu u socdo asxaabtay waxa weeyaan waa ka Puntland way ciyaarayaan waa la soo tuuraya waka asxaabtay raali noqdayaah ciidamadu ma haysan karo anigu waxa weeyaan انت بود دريمي كرتان ديكو بلونيغي ما تقارا اصحابته كمالداريا waa dareemaysan hadda baloonigu meesha u socdo ayuu wariyuu ku qasban yahay inuu ma taqaara xageedu yaani ma baloonigu aado ayuu baloonigu qasbaya meesha baloonigu ku socda wanaadaya insha Allah anu labadan xul imamadooda ma haysan karo way laadayaan ciyaartooyga xulka Puntland haya waa kare laadayaan ma madax kale ugu waali doontaan estel markale والله وحسب بدبادي سيف بيهيد سفي عم هو بدباديين قول هياها حلقة كوبادة عاتي قلمدو وحلو قفورتا يسكوك عينا سعابتاي وحلو قفورتا يسكوك عينا ويالكين بانا هيا ويلكا والحلين بانا عمدا اللي يقطورو يلا يكون كورين هيا قلمدو افكوري قولكا هيا قلمدو وكان عياريان runtii markaad jibaalka galmudug iyo Puntland ku jirto dhigiyaala ka iimaanaya runtii anigu ma dareemin waxaan markaan tabinayo ciyaarihi waaweynaa ee classic iyo ciyaarihi kale markaan tabinayo wallahi aan dareemin baan ku leeyahay kabtaas hawlaha ma aan dareemin maxaa yeelay waxaan ku jiraa shubkii aan dhaxdo ku jiraa maanta shubkii baa ciyaaraya maanta wallahi ma sha bulkeeta ma yaala maanta waxa weeyaan waa ka markale ciyaarayaan hayaba هيا وكان ولي اوكي با استل اصحابتي عمامدينو ما هيسكروا رير فيسبوك اصحابتا نغا داوريا guud ahaan muqdisho ee astaan tv ka daawanaya barnaamijkan tooska ah
waxaan leenahay waa loo soo geliyey gol hayuu khatar buu geli gaaray waxaan leenahay saabta galmudugaysan kuwa buntlandaysan nasiibaan idin rajaynayaa ee naga daawanaya astaan t v dadka guryahooda ka daawanaya waxaanan ilaabi karin ixtiraam naga mudan muhiim inoo ah iyana aan weynaynaynaa dadyowga naga daawanaya caalamka ee ku kala sugan puntland iyo galmudug magaaladii wada jooga ee maanta dhinacyada kan kala taageeraya waa kan haya gal waa kan puntland afka hore goolka puntland xariifays buu leeyahay wala waa xariifay dimidkana waxaan ku jiraa istil buu isku dhacdhacaya waana haya ciyaarta waa kan